Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Reer dhaqankaaba waa idin salaamay meel kastoo joogtaan iyo si walba idila socotaan ama muuqaaladu idin soo gaaraanba. Aqalka yarka aniga ka soo dhex baxay maasha Allah. Xilliga waqti galaba ayay ii ahayd muuqaalka aan sameynay. Jooguna maasha Allah iska ahaa. Runtii meeshaas marar badan baa iyada cagaar soo gudbiyay. Adduunkaaba sida iska ah. Ilaahay baa ugu talagalay. Ilaahay roob khayr qaba hana siiyo. Maanta waxa loo socdaa duurkaas loo dhex socdaa nakeena. وإسراعنا ويفعنا له ماشي إن عجار تايندو إن فوسي دوكسدان لكن دم لها نيجو قاتا إن شاء الله عجار كانوا ولا جار دونا وحن أسعنا ما أنت كل جميعه يعني كاميرمان كمرك اللي جرب كاميرمان كمرك صارت من حسابية مقتهاي وحيلا سعودة قبر ولا شيء يا أصحاب كلا وحلا الدنيا ميرو أما عاوز كلوس مير هذا رقب يا بجورج وتعالى سيدا كلنا حفظ ولا بتشوجا ولا بحفظ إنه تشوجا marka waa in caws la sii sameeyo rar la sii sameeyo aqalka la sii sameeyaa islaantii wiilal u joogan waxaan ku rifadhoomo yaalo si hadhowdii ay carrada u barbariin oo dhihina heblaayo raar meel igu sheeg in kastoo xeerta hoo marka wiil uu dhisanayo mar walba reemigu ay soo kala qaataan haddana way kala duwan tahay tusaale hadda aniga aqalka ii dhisan ee arkaysaan wiil habar ruuxa ku dhistay reer runtii maasha Allah wiilka aqal hal meel lagama soo qaadin suuqna lagama soo gadin aqalku awalba hore u sameysnaa marka waa hooyooyinku karti is dheer yihiin maasha Allah gabadhu maasha Allah walaashay mar walba waxbay sameysaa maanta marka cawskaas aan gacanta ku hay cawska kii arigu cunayay ma ahan waxa weeye dadka caws markaan leeyahay horta deegaanka anigu aan joogo Meyre ayaa laga dhahaa lahjada waa lagu kala duwan yahay Meyre ayaa looga yaqaanaa dadka qaarna caws bay wada dhahaan macaa xitaa rarada caws bay u yaqaanaan marka waa lagu kala duwan yahay marka meesha waxa ka muuqdo dhan waa wada caws hadda idin muuqdo cadcad dhan magaca caws buu wadaagaa balse iyadu Meyre ayay kaga sii duwan tahay raarooyinka ama rarada aqalka in soo tuso lagu dhiso ayaa laga sameeyaa marka galabtii halkaas aan u soo baxnay cawskaas la gurayaa waxaan ka soo shaqeynaa galabtii bal cawska wax ka soo gurayaa runtii in aan laftigeyga rara bilaabo waan jeclaalaha ama aan sameeyo waayo de waxba dhaqanka aan soo gudbinayna inaan qayb inaan ka noqdoon ku faano rarooyin aan sameeyay way fiicnaa lahayd laakiin anigu markaan yaraa ma aanan aqoon oo ma aanan soo sameyn sababtoo ah waxaan noo dhisnaa meel baadiya guri baa jiingad baa nooga dhisneed laakiin dhiisho kale ayaan aqaanay oo Ilaahay u naxariistay ayaa tuli jirtay marka cawskuna wax aad u fudud hadda laftigeeda waan garanayaa oo wax iga bilbilaaban yihiin marka runtii waqtina hadaan u heli lahaa hadda waan sameyn lahaa laakiin waqtigii ayaa wuxuu iska noqday ciriiri maalin muuqaal la sameeyay maalin muuqaalkii la soo habeynayo waqtigii baa iska yaraaday si walba taa marka meeradaas ayaan gureynaa insha Allah waan sameyn doonaa waan arki doontaan waqtigeeda marka meeradaas ayaa la gurayaa geedaha hoostooda laga soo gurayaa xaaladku waxaan ku rimaa sahlana geedaha hoosteeda meel kasta ku jirto ayaa laga soo bixinayaa qashin baa ku dhex jira waa laga sii saaraya sida arkiid waa la jijibinayaa meerada marka ama cawska rada laga sameeyo isagu ma jajabayo inkastoo hadda laftigeedu dadkii ku halka ka muuqda inkastoo iyada laftigeedu marka xilliga jidaalka qaarkood ay jajabto inta badan ay ka xoog badan tahay cawska waa la jaafaya marka soo looga nadiifinayaa inta marka hore la jijibsho ayaa qashinkii wixii marka ku jirjiray cawskii kala biribirihii ayaa laga nadiifinayaa marka kadibna cawska nadiifka aniga gacanta ku haya iska barta Meyre ayaa la dhahaa geedaas ayaa laga soo dhex guraa xilliga aan gurano waa xilliga galaba Meyrada waxa ku fiican tahay ama cawska rarada lagu sameeyo subaxa hore in la guro subaxa hore way qoyan tahay maadaama xilli jidaal lagu jiro horta iyadoo qoyan cagaarna waa la guraa xilliga jidaalka ama xilliga dhirtu saa u qallalan tahana waa la guraa marka dhirtu saa u qallalan tahay يعني هذا اللي بدن بايجا يستوح أيدي حتى قيبة إيجا تجيبها جيت كأن شرى الداخلة بالي الداخلة ديك جيت كأنو مدونين لكن أذنك أن تصيا أصحاب الداخلة جرنا يسا وحن كرسول هذا حسوس بدن معلمين تي دوكسية دي قرانك أصحاب اللوسو جري عشري جيت كداخلة بالي هذا وجيت سهل يعني سيد فيله ذو كلاوي سهل كم دمانه يعني ما تشبيه دعان بوليه هاي حلي هذا دقل ديك بالي هذا لبا أيا لسقط دبته معلن كدكسية القرآن كأيام حتى إلما كبري شري ما يشهد كو مقالة أي يعني بريس كأما فيله أي كايستان أما أولها قار بدنا بكل يقول بريس أي استعمالان بأم الإنيا baadiyaha bariga hore wallahi quraanka waxaan ku erisay adag baa lagu soo bartay meesha maanta ilmaha ay 5 sano 6 sano ay dugsiga fadhiyaan bariga hore 1 sano cunug ama 2 sano quraanku dhameey jiray marka usha saasa loo duubi jiray ciyaalka loo diri jiray qamiista
asxaab badan halkaan ka salaamaya deeqliga garanay macallimiintiin iska cafiyo quraankeedin barayeen waxa weeye kulay diinta inay dambaraan ayay ahayd inkastoo ilmaha in si daran loo garaacay safiicnaan laakiin si walba ay ahayd waxa weeye waa lagu faa'iidi jiray oo macallimiintu ilmaha un bay la dadaalayeen dadkii hore karti badnaa dadkii sida loo garaac jiraa karti badnaa ee dadka maanta ciyaalka laftooda isla dhici jiray markii ariga iyo raacno intaan duubana la isla dhici jiray marka deeqligaasna inaan xasuusiyaan doonayay usha deeqla hadii wax kale u garanaysaan iyadana noo soo qoro aniga deeqla ayaa laga yiraahdaa gobolkan Galgaduud marka waan ka soo tagnay deeqligii meeradiini ayaan iska guranaynaa galabta marka waa meero gurus intaas waxaan ku meerada baarka dheer baan wataa naagteeda laakiin waxaan iska galaa maxay say baashaal iyo deeqle ka sheekeyn dadku dhowr umaagood bay gurayaan waxaan ku iga badan yihiin anigu inta yarta la wareegayo umaag waxa la yiraahdaana hadii aan idin sheego يعني xirmada gacan laba gacmood buuxi karta adoo gacan buuxi karta gacantaada markii buuxsanto ayaa umaag la yiraahdaa marka ma sha Allah wax walba inaan barano ama aan ogaano ayaa hadafkeenu yahay maadaama duurka ama dhirta aan dhex joogno inaan wax walba inkaga soo sheekeeyo inta badan asxaabtu waxa ay garanayaan kaga ma sheekeynayo qofka wuxuu garanayo kan xoolaha garanaya kan meyrada ama cawska garanaya kan qabada garanaya laakiin dad baan aqoon oo maxay tahay la rabaa inay fahmaan iyagoo guryahooda jooga oo baadiyaha aysan tagin marka iska bartaan ilaa walaalaha qaaliga meeshuna ma sha Allah waa meel meyro badan leh oo cawskeeda badan dhulka horta haba iska geedo yaraaday cawskiisa aad u badan oo dhulba waxbuu hodan ku yahay marka cawskiisa iska badan waxa arkay asxaabta qaar dhaa dhulkan dhirti baa laga dhimay dhulkan dhirta Ilaahay baa u dhaliyay dhirta ka baxda dhirgaab ah dheer iyo jeerin iyo dhirta gaagaaban gagabo dhirta gaagaaban baa ka baxda waxba dhulkan Ilaahay baa maxay tahay mid walbaba waxa way sidoo Ilaahay ugu tala galay waxa halka marka kaga muuqda geedka dheeriga meerax baan ka diirnaynaa meerax baa loo yaqaanaa meeraxda booska xariga ay ku jirtaa oo qofka marka geedaha ama baadiya duurka ku dhex jirto hadii aad xarig u baahato geed baa sida laantiisa u kala jeexisa meeraxda yarta oo yani booska xariga ku galisa ayaa laga diiranayaa jixta meel dhiig ka yimaado ama daqranto ama qof wax ku dhacan meeraxda ayaa lagu xirayaa ma sha Allah runtii meeraxduna waxyaabay dadkii hore ay aad ugu adeegsan jireen way xataa dhaawacyada oo qof markuu dhaawac hadii hadda meel dhiig ka yimaado isla markiiba dad meerax waliba mid jeerinka hada ku xirto isla markiiba dhiig uu joogsanaya xarig baan ka dhigtay bal ka waran xarig ma baahnid wallahi dadkaygu waa dad wax walba isku filan oo samaysan kara oo maskax leh marka meerada umaag bay gaartay umaag baa loo xiraa xirmo yani xirmo meeraxdaas aan soo diro geedka ka soo diray ayaan ku xirayaa marka galabto dhan baa warwareegayo qorraxda way sii dhici rabtaa hadda intaas ayaa laakiin dadka kale way iga badan yihiin laana anigu cabar baan ni sheekeynayo meelaan is istaagay marka waa taa waa xiray wadinka u jeeda sidaas loo xirayaa xariga loogu xirayaa cawskayna waa ka ma sha Allah ah cawska isaga wuxuu fiican yahay aad u fiican yahay xilliga ma aragtay roobku ay u da'o oo meeradu intay baxdo ay cagaaran tahay xilligaas kale fiican tahay ma sha Allah halkaas ayaan gashtay yani gabdhii baa iska matalay ariga raaci jiray waxa lagu yiri daweyna tahaba halkaas ayaa la gashtaa si ay isugu toosto oo meero toosan u noqoto yani waxa halka loo gelinayo waxa tahay kalxanta meel dhijir loo gelinayaa inay waxa la rabaa ay meero toosan u toosan ay noqoto marka geed baa gacanta iga midayo way iska caadi waxaas oo dhan markuu dabka kugu dhago ama qodax xukuumada waxa la yiraahdaa Ilaahay dambi dhaaf iga dhigo wali si loo siiyo waxba ma ahan marka ma sha Allah waan halkaas ka meereysanayo kun rimar baa shaqayda la winaayo shan riyood ku duwimaayo la winaayo shan jirgaal ku rarimayo la winaayo samuray ku gadimaayo la winaayo shan habrood ku talimayso la winaayo bangiga ma fadhiyeede la winaayo betadadna tiriyeede la winaayo betadadna dalaceede la winaayo nasab weeye ku nasibso la winaayo shariyad ku duwimaayo shamuray ku gadimaayo shamuray waxa loo yaqaan masagada ama haruurka bariga hore la cuni jiray kurimoor baa u shaqayda beesadaad noo tire bangiga noo fadhine beesada noo tirine yani gabdhaha waxaan u sheegayaa wiilasha noo jooga ay gurso doonaan baan u sheegayaa wallahi ragga lagu yaqaan been xiragelinta waa taa gabadhiina ku qaada hibilowga been xiragelinta wal xagee kun karimoor joogan intaas waa kaftan hibilowga hadaan ka nimaadno waanaga cawski gurayna
muhiimaduna waxay tahay in wax badan la barto, in wax badan muuqaal lagu arko. insha Allah waan ku dadaali doonaa asxaabta qaaliga sidaan idin sheegayna halkan intii kale jidaalka ay tahay baan ku nasanaynaa insha Allah goboladeena kaliya sida lagu kala duwan yahay iyo meelaha dhaqanka inta badan ku sii dambeeya waan tagi doonaa. ugu dambeyn waa taa galabto dhan tan iyo galabta inta ay guraysa naagta dhan dheer inta leeg waxa weeye intaas ayaan guray waa umaag iyo haaf yani umaag sida in sheeg waxa la yiraahdaa inta gacanta markay buuxsanto waa qasab waa la xiraa kadib markaa iyo inta yarta baan wadaa intaas caaw cid ku galay cid gal baa la yiraahdaa naagtida weyn galabta banaanka u soo baxday dadka la doonisay meyrida marka qeyr badan baan rajeynaya in wax badan la kala faa'iidana way fiican tahay waxa aad u garanayso kale meero iyo cawsan baa la yiraahdaa kale wax kala ma lahan qeyr badan baan rajeynaya muuqaalkana like ta hala saar